warbixinta guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuu la daalaa dhacayaa abaartii ugu darnayd ee soo marta 40 sanadood ee la soo dhaafay. Abaartii daba dheer la dhihi jiray midaan baa ku xigta. Abaartaas marka waad ogtihiin gurmadka la fidiyay midowgii Sofiyeeti oo markaas xooganaa oo dawladda Soomaaliya xiriir fiican la lahaa diyaaradihiisii in dad badan lagu soo daadgureeyay gobolada oo lagu geeyay koonfurta iyo meelihii wabiga u dhawaa. dad badan ay ku badbaadeen arrintaas gurmadkaas waagaas la fidiyay. Marka abaartani waxay ka baaxad weyn tahay tii 2011 iyo tii 2016 kadib markii ay baaqdeen 4 xilli roobaad oo xiriir ah ayaa sabab u ah. Sababta koowaad musiibada abaartan oo aan horay loo arag ayaa saameysay in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah, iyadoo ku dhawaad 45% bulshada Soomaaliyeed ay soo food saartay cunto yari aad u daran, lana qiyaasayo in 17 gobol ay macluul soo waajihi doonto bisha September 2022 haddii aysan dalka ka di'in roobabka dayrtu ee soo socda oo la rajeynayo bisha October iyo November. gobolka Banaadir baa ilaa xad oo asaguna ma aragtay aan xoolo iyo wax badan ku tiirsanayn ayaa ka badbaaday, laakiin isaga naftirkiisa waxaa laga yaabaa in dadkaas ay ku soo jabaan markay abaartu ay hadday sii xoogaysato. abaarta dalka ka taagan waxay saameyn taban ku yeelatay nolosha dadka, duuniyada iyo wax soo saarka oo dadkii beeraha iyo kulli ka shaqayn jiray oo dhan markii abaartu dhacday deegaamadoodii waa ka barakaceen. waxayna ku soo aaday xilli dalka ay ka jirto sicir barar baan, adduunkiina dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya uu saameeyay sicir barar badanna dalkeena hadeertaan dadkii ay la daalaa dhacayaan, taasoo waajib ka dhigaysa in gurmad qaran oo bini'aadamnimo oo degdeg ah lala gaaro dadka tabaalaysan. Haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta markuu arkay xaaladda degdegta ah ee bini'aadamnimo ee dalku ku jiro, markuu qiimeeyay baahida loo qabo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladdaas, markuu tixgeliyay waajibaadka shaqo iyo mas'uuliyadda qaran ee loo igmaday, markuu la tashaday madaxda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda, markuu arkay dastuurka qodobkiisa 99F iyo sharciga hay'adda Sodma qodobka 1 faqradiisa 6, wuxuu golaha wasiirada sharafta leh u soo gudbinayaa lana wadaagayaa baahida loo qabo dib u howlgelinta hay'adda maareynta musiibooyinka Somali Disaster Management Agency Sodma si dadweynaha Soomaaliyeed looga badbaadiyo musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay geystaan aadmuhu loogana jawaabo xaaladda abaaraha ee daran ee hadda taagan.